saaxiibayaal waxaan joogaa hotel international what's called Sharra Addis. Okay. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, channelka nagala socotaan waa Maslax Vlogs. haddii aad markii koowaad tahay fadlan nagu soo biir, subscribe, like, share noo saar. haddaad nala sii joogteen aad baad ugu mahadsan tahay. maanta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa, gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Boli. waa bartamaha magaalada ama downtown-ka. muuqaalkan waxaan rabnaa inaan ku eego hal habeen intee baan ku degi karaa hoteelada magaaladan, welibana magaalada bartankeeda. waxaan ogaan doonaa qiimaha lagu seexan karo. waxaan rabaa in haddii kani areadan qaali ugu noqdo inaan hoteelka ugu jaban iyo qiimaha ugu jaban ama macquula aan ku seexan karno. bartan inaynu ka dhaqaaqno dabaqyadan iga dambeeya ama kuwa kasii dambeeya hoteela ayaa jira, kuwa international iyo kuwa local. kuwaas ayaan rabaa inaan qiimayaashooda weydiiyo. haddii ay qanciyaan jeebkayga waxaan rabaa inaan caawa seexdo. haddii ay qanci waayaanna mid aad u jaban oo macquula oo nadaafada. inta badan dadku waxay eegaan nadaafada. markaas waxaan leenahay bartan ayaynu muuqaalkeena ka bilaaban doonaa ee suu dadweyne kale u gaadho. fadlan muuqaalkan sii fogay ayaan ku leeyahay. let's go. hadda waxaan marayaa, waxaa laygu sheegay hoteelada inay xagga iga xigaan, marka intiin waan iska lugeynaya, waxba taxi uma qaadanayo. kadibna waxaan rabaa inaan qiimayaashooda weydiiyo. hadday i qanciyaan dee boolidan shidan ayaaban iska degayaa, moogta. haddii kalena waxaan rabaa inaan saan ku jaban u raadinayo aan eego insha allah. saaxiibayaal waxaan joogaa hotel international what's called Sharra Addis. okay, waxaan joogaa Sharra Addis. so waxaan weydiinayaa qiimaha single roomka because waxaan rabaa inaan qol single dego. how much one single room? how much? $50. so I have an Ethiopian citizen. Lanino. Tonight. Yes. For beers, how much? By Ethiopian beer, how much? So, which service it has? Breakfast including? Cheap? Okay. So it's too much for me. I was searching, middle price. Okay, thank you. saaxiibayaal qaali ayuu noqday. waxaa laygu dhahay $50 oo u dhiganta, hoosta ayaa nii soo dhigi doonaa qiimaha Ethiopian. marka wuxuu leeyahay jimti, steamti, allahumma musta'an, qureeci. markaas waxa weeye qaali buu igu noqday. bal meelahan ka raadinaya ku kale inaan galo. okay, halkan mid kale isagana ku yaala, kaas $50 buu noqday. $50 way nagu badan tahay ya. marka waxaan rabaa inaan meelahan kala galo. hi, salaamno fatasha. salaamno fatasha. it's okay. okay, hadda mid kale cusub baan soo galay. hi, how are you? You good? Can I have a room? Okay, single. This is a name, right? so hotelkan ayaan imiday, waxaa lagu magacaabaa Ayoma Hotel. so waxaan rabaa inaan single room ka qaato, qiimayaasha weydiiyo. so how much the single room? okay, for per night $40. if I'm citizen Ethiopia beer. okay, 147. yes, I get it. It's like almost 62, like 61. so which service it has? One single room? breakfast too. Swimming. No gym? I like the gym. Yeah. Okay. This $40 is like
for me it's maybe a little expensive, so I was searching only one night. For 1 month? Yes. No discount. Okay, I will give you $5 discount. $5 discount. So it will be 30, 31, 35, 35, 35. Okay, 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 okay. So in Ethiopia, make it me multiple. 35. It will be 5,145. It will be 5,000. Okay, let me find. Dollar, you can give us. Okay, let me say around area a little less One price. night? Yes, If you are for 1 month? it's too much for me. It's too much. So let me search here. You came from where? I'm here. Minimum, I would need for you 4,000. All right, all right. Thank you so much. I will come back. Let me find another one. If there is, I will be there. Thank you so much. Appreciate. Okay. Saaxiibayaal, hotelkan Ayoma ayaa la dhahaa. Qaali ayuu igu noqday. They said to me like $40. Yani $40. So waxaan rabaa kuwa ka sii jaban. Marka waxay noqonaysaa inaan tago xaafadda ay Soomaalidu degto ayaa laga yaabaa in laga helo in qiimayaashiisu ay aad u jaban yihiin oo ilaa $6 ama $5 aynu ku seexano kadibna qolku suuliga gudaha ku leeyahay. Marka hotelkan wuxuu yiri service-yadiisu waxay leeyihiin waa swim, no gym, breakfast, intaas service-kaas ayay leeyihiin. So hadda waxay noqonaysaa inaan xaafadihii Soomaalida aan aadno ama aan lugeeyo. Almost waxay isku jiraan 4 kilomitir ma foga. So muuqaalkeena la socon ku leeyahay ka caajisina meel fogna gaarsiiyo saaxiibaya. Waxaan ka soo lugeeyay suuqii weynaa, hoteeladii aan soo marnay qaali ayay nagu noqdeen. Hadda waxaan joognaa xaafadda Soomaalida. Inkastay albeerkooyin ama guryo la dego aan soo maray, laakiin dabaqan iga koreeya waa hotel lagu magacaabo Hadrawi. Waa abwaankii dhanaaye Soomaaliyeed Allah yarxama magaciisa ayuu wataa. Soomaaliya ayaana iska leh. Halkan ayaan rabaa inaan qolka weydiisto maadaama lagu yiri hotelkan aad buu u jaban yahay. Hadda ka hor qiimihiisu u yaraa, haddayba wax ku dareen baa lagu dhahay. Marka waxaan rabaa qol single ah oo macal showerkiisa gudaha ku leh inaan ka kireysto. Let's go. Hadda waxaan ku suganahay qaybtii reception-ka ahayd. Waxaan rabaa wiilka inaan weydiiyo qiimaha qolka inta uu yahay. Saaxiib waxaan u baahanahay single. Kumbirba. Waxba ligama deynayo. Haye muxuu service leeyahay aroortii ma quraac buu leeyahay muxuu leeyahay quraac ma leh. Okay, waa si wanaagsan. Waxaan u baahanahay qol single oo gudaha showerka ku leh. Level keem saad ku kireysaan 1500. Single kuna waa 1000. Gudu ku leeyahay wax kaste. Okay, marka xilli ma ka baxaya 5 saac 12 ka bar subaxnimo. Okay. Haye waxaan rabaa inaan lacagta makaash ma ibir maxaa. Okay, ibir waa lagu diri karaa. Saaxiib yaal ibir baa lagu diri karaa buri kunkaan u direynaa gudaha galeynaa hadiina qarxiyo adeegiis haduu na qanciyo waynu eegi doonaa. Wiilka ayaana raacay waa isla eeganaa. Let's go. Free ayaa ka soo qaatay wuxuu igu yiri 104 inkastoo la ii soo sheegay lagu yiri hotelkan aad buu iskaga jaban yahay. Bal qolka ayuu uu sheegay baan taginaa 104 buu siiyay. Waan eegaynaa hadii uu na qanciyo halkan aan degaynaa. Okay. Wow. Waa kan qolkii hadda bay. Leedkana halkan in laga shido wuxuu shidan yahay already. Laakiin leedka daciif. Saaxiibayaal haddaad arki weydaan baan u maleynayaa qolka tinkiisa aad u yar. So waxaan sameynaynaa kabaha waa inaan iska bedelnaa si aan u jeegareyno musqusha iyo showerkiisa. Okay. Halkan laga shidaa aan filayaa. Kaas halkan laga shidayaa. Tinkiisa laga shidaa. Aga. In leer lahayn ma maayna. Oo weydiin doonaa. Soo inaan showerka jeegareyna. Okay.
soo dhacdanayo biyo la'aan baa jirta magaalada malaha. Okay, still biyo ma hayo. Kan ma shaqeynaya. Oh no. bal biyo dhan ma shaqeynayaan. lacagteedina waan bixiyey. waxaan rabaa inaan weydiiyo ku idhaahdo biyo qaabkaad u keeni lahaydeen sheega. saasuu ku dhan yahay saaxiibeel musqusha inkastay biyo la'aan jirta laakiin waa iska nadiif good qiimaha ugu qalmaa. halkan waa sariirtii kolley 2 qofaa seexan karaba. 2 qofaa seexan kara. fiiskaan eegna haddaba fiiskuu leeyahay magaaladiina halkaasaad ka daawanaysaa caawa sax aynigu qabto taas cadceeddii baa sii dhacaysa. marka cadceeddaa sii dhacaysa maqrib baa la taagan yahay. waxa qaylaya waa kiniisadii maaha eedaan. okay, kursi male saaxiibayaal. wiilkan waan weydiin doonaa qiimaha aan siiyey iyo inay islahaadaan adeegiisu waa marka koowaad oo muhiim. kuwa ka yar habaysan way jiraan laakiin lacagaha ayaa qaaliya. dadka markaan weydiiyo waxay ku dhaheen hoteelka Hadraawi la yiraahdaa kumbira ka ku soo xigaa 1500 noqonaya isaga lamida. marka biyahana waan weydiin doonaa. biyuhuna waa lagama maarmaan inkastoo qolalku ay buuxaan oo halkaa qol aan ka helay dadkii ka dambeeya lagu yiri ma jiraan. iftiinka qolkan aad buu weir yahay. mida labaad qiimihiisu aad ayuu u jaban yahay. that's why lightka in laga bedelo biyuhuna ma shaqeynaa waan u sheegi doonaa. salaadii maqribna waa la taagan yahay. caways bay leedahay. waxaan xiisayaa inaan PS5 ama PlayStation-ka ciyaaro caawan soo yar caweyn kadib halkan aan ku soo noqon qureec male ayaa laygu dhahay laakiin cafeteria ayuu leeyahay. cafeteriadiisaas ayaan ka qureecan doonaa beritoole haddii aan la yiraahdo. hadda waxaan u socdaa xagga iyo inaan soo tukado kadibna magaalka galo. caways kadib hadda ayaan qolkayga soo galay. caawana halkan ayaan rabaa inaan seexdo. subaxana aynu maaragtay ilaahay inuu inagu baraysiiyo nabad qab qolkan oo maaragtay aan jeegalin doono hurdadiisu inay fiicnaanayso. kolley anu kuma gamo habeenka koobaad meesha igu horeysa. waxaan rabaa in albaabka iska xidho oo loo garaysto kadibna lightka kan iima shaqeynayo. so waxaan rabaa bartaas laga daminayaa. bartaas laga daminayaa. waxay noqonaysaa inaan iska seexdo kadibna aan lightka xagga iska soo damiyo. saaxiibayaal haddii la yiraahdo subaxa ayaynu isku soo noqon doonaa. maaragtay inuu nabad qab Ilaahay bartaas nagu seexiyo ayaynu leenahay. sidaas iyo subaxa haddii la yiraahdo inkastoo qureec lahayn laakiin check out-ka waxa laga baxayaa waa 11 barqanimo sidoo wiilkii sheegay. wixii lacagana ibraya nagu tagay qiimuhuna waa kumbir. bartaasna inaan lightka ka damiyaa rabaa. waan salaamayaa. sidaas iyo subaxa ayaynu ballanaa hadduu eb yiraahdo. subax wanaagsan baan leeyahay meel kasta aad joogtaan. hadda ayaan nabad qab kusoo toosay. waxaan rabaa inaan hadda cadaydo kadibna shower qaato kadibna aan qureec aado maadaama qolkan laygu dhahay check out-ka ama xilliga laga baxo inay ku dheehan tahay 11 barqanimo ilaa 10 barka. wiilku subaxa la sheegana ama galabtii shalay toole wax qureec ah oo adeeg u leeyahay ma jiro maadaama uu yahay qiimihiisuba kumbir oo u dhigantaa waxoogaha ilaa $6. so waxaan rabaa inaan shower qaato cadaydo kadibna aan qureec maaragtay aan aado.
markaan cadaydo keen foolqdo kadib ayaa shaawirka qaadan doonaa kadibna waynu ka baxaynaa hal tolo waxa ka mursana inuu bilaabiyo noqdo laakiin intuu ay soo dhaceen markaa biyo ay soo dhaceen halkan ayaynu ka sii ambaqaadanaa isku soo laaban guys hadda ayaan qolkan aan deganaa ka bixi rabaa inkastoo timeka aan ka bixi lahaa weli ay gaadhin aan waqti haysto laakiin waan iska quraac tegi kadibna magaalkaan galayaa waxaan rabaa inaan tartiibtiisa ula hadlo ninka meesha jooga laakiin aan u damiyo kadibna freeze aan siiyo kadibna aan ka baxo waayo aqoonsigaygi waa haystaa marka run ahaantii waa 3 dabaq qolobka waa lagu jira waa la degan yahay ilaa korka soo qiimihiisa iyo hurdadiisu aad bay u macaanayeen qiimuhuna aad ayuu macquul yahay soo waa la jiifaa saacadan waxaan rabnaa inaan wiilka ku wareejino furaha kadibna aynu ka baxno inkastoo laga sheegay kafe inuu leeyahay xageen ku dhigaa saaxib jiiftaa ma file xageen ku dhiga ay maasan waan tagay waan dhamaystay way ku imanayaan dadku soo dhawey lambaraantaada xaggan aan dhigaya ay kafe inuu leeyahay malaynayaa laga quraacan karaa laakiin waxaan rabaa inaan magaalada kale ka qureecdo meela jaban baa iyaguna jira saad muuqaalkaygii hore aad ku soo aragteen soo waxaan leeyahay muuqaalkan meel fog gaarsiiya haddaanad muuqaaladeedii hore soo daawana dib ugu noqo siina sheergaree like-tana saar so meel sare u gaadho بقى تابزة جراش quraac kadib waddanka Ethiopia waxaa laga yaqaanaa marka la qureecdo in kafeegan lagu dhigto sidaas ayaanad ku shaqo tagi doontaa waayo waa dhaka jabiya la yiraahdaa ama jabanaa bunaaba u yaqaanaan dadka deegaankan dega haddaba muuqaalkan waa muuqaalka amaba hoteelka la degi karo ee macquulka aan odhan karno kuwa ka hooseeya way jiraan $3 laakiin lama degi karo aan waxaan ka doorbiday inaan helo qol musqushi iyo maaragtay showerkaba gudaha ku leh muuqaalkan haddaba meel fog hala gaarsiiyo haddii aad nala sii joogtana aad ayaad u baadsan tahay bartan ayaynu ku soo xidhan masaaxiibka